kulanti wanaagsan saaxiibayaal meel walba oo aad naga daawanaysaan kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey waxaan muuqaalkan ku dul istaagi doonaa Ethiopia oo war ka soo saartay heshiiskii ay la gashay Somaliland ee ay kula galeen xeebaha Soomaaliya qaybo kamid ah ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia oo goob fagaaraha ka hadlayay ayaa waxa uu mar kale kaga hadlay heshiiskii Somaliland ay la galeen waxa uu Ethiopia uga dhigan yahay iyo waxa ay raadinayaan iyo sababta ay u raadinahayaanba qodobkeena koobaad ayaan ku dul istaagi doonaa qodobkeena labaad Somalilandna waxay walaa xoogan ka muujiyeen maraakiibta dagaalka ee Turkiga maraakiibta badda ee waliba dagaalka ee dalka Turkiga ku soo qulqulahaya xeebaha Soomaaliya waxa la filayaa maalmaha inagu soo aadan in xeebaha Soomaaliya ay soo gaaraan maraakiib ka socoto dalka Turkiga oo waliba kuwa dagaalka ah inay xeebaha Soomaaliya soo gaaraan ayaa la sugayaa war ayay ka soo saareen xukuumadda Musabbixi walaa xoogan bay ka muujiyeen waxa ayna codsi u direen dalka Turkiga iyadana waa dul istaagi doonaa dhinaca kale waxaynu eegi doonaa talaabo ay qaaday dawladda Eritrea ee uu hogaamiyo madaxweyne Asiasi Afwerki wuxuu gabi ahaanba joojiyay duulimaadyadii Ethiopian Airlines ay ku tagi jirtay Asmara waa caasimadda dalka Eritrea haddaba maxaa soo kordhay maxuu yahay khilaafkan cusub maxay tahay sababta Eritrea ay u joojisay duulimaadyadii dadka shacabka ee Eritrea ay ku tagi jireen iyadana xogo cusub oo ka soo kordhay ayaan dul istaagi doonaa soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidina noogu reeba qaybta commentiga aynu ku bilownay Ethiopia way cadaysatay horta warkeeda Ethiopia warkeeda way cadaysatay Soomaaliya waa hurudaa laakiin Ethiopia warkeeda waa cadaysatay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed oo goob fagaaraha ka hadlayay ayaa mar kale waxa uu ku soo celiyay in codsiyo badan ay direen dalalka badaha leh ee Afrika ee xuduudaha ay leeyihiin ay codsiyo u direen la xiriira in Ethiopia bad la siiyo arintaasi codsigaasi ay direenna cidda kaliya ee ka soo jawaabtay ay yihiin Somaliland ka soo jawaabtayna ay uga mahadcelinayaan badiina lagu heshiiyey loo saxiixay la siiyey isla markaana ay mahad weyn iyo abaalba ay u hayaan waliba Somaliland iyagu ma dhihine Soomaaliya noo soo jawaabtay bay dhaheen Soomaaliya ayaa noo soo jawaabtay Soomaaliyada noo soo jawaabtayna de intaasayna siiyeen bay dhaheen Ethiopia marka warkeeda way cadaysatay waxa ayna sheegeen in heshiiskii uu gabagaboobay hirgelintiisana uu hadda la taagan yahay in la hirgeliyo kaliya uu dhiban yahay oo maalmaha soo socdo ama asbuucyada soo socdo ama bilaha soo socdo la hirgeli doono iyagu waxay ku soo koobeen sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa heshiiskaasi la hirgelin doonaa dawladda federaalka ee mandate-ka u haysatay ilaalinta dalka Soomaaliyeed dhulka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed gacan lagu bahayo meel ay aaday madaxweynaha diyaaradu buu sii saaran yahay waa uu la soo dhaweynaya diyaaradu buu sii saaran yahay wuxuu u egyahay wiil YouTuber oo iska dalxiisa ah oo waxa weeye xoogaa dhaqaalaha YouTubekiisa ku kala kacsan xoogaa dhaqaalaha ka soo galo ayuu horta madaxweynihii u ekaaday dawladdu waayii ugu horeeyay ee kiiskan uu cusba dhaqaaq bay samaysay dadaal badan bay sameeyeen laakiin bilihii ugu dambeeyay madaxweynuhu mashquul kale iyo hawlo kale ayuu iska raacday waxaana moodaa in madaxweynuhu uu faraha ka qaaday baddaasi Ethiopia ay u socoto heshiiskaasi Musabbixi ay la galeen in madaxweynuhu uu faraha ka qaado lugaha kala baxay cid kala baxtiri iyo inuu isagu tabaryaridiisu ay tahay waroomahaye in faraha kala bax la yiri baad moodaa dawladda gaabis baa ka muuqda Ethiopiana halkaas ay u socotaa dhinaca kale maamulka Somaliland mas'uuliyiinta ugu sareeya sida wasiirka arrimaha gudaha iyo Musabbixiba waxay ka hadleen arrimaha heshiiska badda arrimahan mas'uuliyiinta waxay ku soo celcelinayaan hoggaanka Somaliland hayo waxay ku soo celcelinayaan in i'tiraaf lagu helayo i'tiraaf in lagu siinayo waliba Maxamed Kaahin maanta wuxuu yiri badda anaga bixinay buu yiri badda anaga Ethiopia siinay eeg adiga ya luqaddu isticmaalaya eeg badda anaga Ethiopia siinay Ethiopiana wayna i'tiraafaysaa cidda i'tiraafka waxa weeye i'tiraafka Somaliland diidana loo joojin mahayo waa jiritaanka Somaliland ka soo horjeeda iyo qaranimada Somaliland ka soo horjeeda weeye Ethiopia wayna i'tiraafaysaa badana anaga siinay anaga ka kareeyay maaha
badda anagaa siinay Ethiopia anagaa siinay buuyi anagaa siinay badda anagaa siinay halkaas bayna taagan yihiin nimankii Isaaq ragga sidaa leh waa raggii Isaaq weeye ma aha ragga kaleete ee Somaliland kale ee mas'uuliyiinta ee xilalka haya intay doonaan baha noqdaan kuma jiraan cidda sidaa leh waa raggii Isaaq weeye nimankii Isaaq ka soo jeeday ku matalaya siyaasadda Musabbixi iyo Inakaahin weeye ragga leh badda Ethiopia anagaa siinay anaga ka kireynay maaha anaga badda Ethiopia siinay Ethiopia wayna itiraafaysaa halka bay taagan yihiin dhinaca kale waxay walaa xoogan ka muujinayaan maraakiibta badda ee Turkiga ku soo qulqulahaya xeebaha Soomaaliya ee la filayo maalmaha soo socdo in ay xeebaha soo gaaraan waxa iyagu ay digniin u direen maraakiibtaasi oo Turkiga oo ay uga digeen in xeebaha Soomaaliya aysan imaanin xeebaha Soomaaliya inaysan ibaan xeebaha Soomaaliya markii la leeyahay waa ilaa iyo hadee lughaya hoosteeda kaliya meesha u socoto Ethiopia ay u socoto ilaa iyo Lamu agteeda waa xeebaha Soomaaliya weeye marka xeebaha Soomaaliya marka hadayba imaadaan ka gees bay soo istaagayaano maraakiibtan Turkiga quuse ee waxa weeye waliba gantaaladu ku rakiban yihiin iyagu cid ay ka baqayaan malaha iyagoo saa u taansaasho calanka Soomaaliya saa uga babanayo yay berbera saa u soo istaagayaan cabsi xoogan baa gashay marka Musabbix wuxuu yiri waxa xeeba ilaalin ka badane maraakiibtan balaayo armay hadhowta waxa adiga ba ku soo qabtaan adigaba armay Hargeysa kugu imaadana ku soo qabtaan buuyo marka digniina istaba jooga ka soo baxayo ay leeyihiin maraakiibtaas Turkiga waxaan uga digaynaa xeebaha Soomaaliya inaysan soo gaarin maraakiibta Turkiga waxaan uga digaynaa xeebaha Soomaaliya inaysan soo gaarin Inakaahin maanta oo lahaa intuu afka saa u kala qaaday tuqi afka weynaa ee waxa weeye mujrimka si kastaba marka iyagana digniinahaas ayay soo saarayaan maraakiibta Turkigu marka imaanshahoodu waxba tari mahayo hadaan loo helin dawlad manage garaysa hadaan loo helin dawlad ay ka go'an tahay difaacidda badda hadaan loo helin mas'uuliin wadaniyad ay ku jirto hadaan loo helin waxba tari mahayaan maraakiib ajnabiga oo soo istaagay waxa weeye xeebaha Soomaaliya waxba tari mahayaan waxaan leeyahay marka madaxda dawladda federaalka ugu horeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in uu soo celiyo dadaalkii waagii ugu horeeyay uu ku bilaabay ka horimaadka iyo go'aanadii adkaay oo ka qaatay xadgudubka Ethiopia ay ku soo xadgudubtay badda Soomaaliya iyo madaxbanaanida Soomaaliya arintii gaabis baa ku imaaday madaxweyne buug yar bajaabka ku wadata doorashaan la gaadhin baad u ololeynaysaa saa u soo noqon lahayd baad u duurbaantumaysaa waxaan waa caraf weeye maalintaad imaanaysay cid lahayd Xasan Sheekh Maxamuud baa imaanaya ma jirin dad yar ba adiga ku taabasana Sheekh Shariif iyo Farmaajo iyo rag baa la watooraa way soo noqon doonaan iyo Saciid Cabdullaahi Dani cid adiga ku hadalhaysay sababtoo waxaa la ogsoonaa wax qabadkaadii hore la ogsoonaa siyaasadaadii hore la ogsoonaa xilka markaad hore soo haysay baa la ogsoonaa cid ku filaysay inaad soo galayso ma jirin dawladihii kuwatay lacagaha kugu faangareynayay baa laga yaabaa inay rajo ku jirtay inay soo noqdaan aad soo noqoto haddana waa kan madaxweynaha tahay calafka Ilaahay baa haya kursiga qofku Ilaahay uu qoraa qaadanaya inaad gaariya in kalena war looma haye dalkaada hoos u soo eeg dalkaada hoos u eeg dhig buugan yar jaabka ku wadateed kolbaba qoslaysa saa u dhowraysan leedahay ma ku soo noqon karna nabadiya nolol halkaas hadda ka hor halkaas nabadiya nolol buudka kula tuganay waxaasi wadaniyadna ma aha waxbana qaban maysa dhig buugan dhig hoos u dhig dalka difaac baan leenahay ajaanibtan aad soo qaadatay Turkiga soo qaadatay walaaladeena inoo soo gurmaday in la howlgaliyaa loo baahan yahay in badda lagu difaaca loo baahan yahay in laga shaqaysiyaa loo baahan yahay ku shaqaysi oo meesha waxa weey doorkaadi baa maqane doorkaada qaado ayaan leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhinaca kale to Eritrea iyo Ethiopia way iskugu jirtaa Eritrea iyo Ethiopia way iskugu jirtaa oo fawaarkii waa madaxweynaha dalka Eritrea maanta wuxuu ku dhawaaqay in gabi ahaanba la joojiyay duulimaadyadii Addis Ababa to Asmara ama shirkadda duulimaadyada ee Ethiopian Airlines duulimaadyadii ay ku tagi jirtay magaalada Asmara ee caasimadda Eritrea in gabi ahaanba la joojiyay isla markaana aysan ka soo degi karin Ethiopia balaa ku dhacday balaa ayaa heshay xagee Eritrea lagala soo hadlay meel lagala soo hadlay garan maysid meel lagala soo hadlay ma garanaysid ninkii la dhahayay Abiy Ahmed balaa haysato horta Abiy Ahmed balaa musiibo ku dhacday musiibo ayaa ku dhacday Eritrea xiriirkii u jartay Soomaaliya dagaal baa kala dhaxeeya Djibouti iyaga xataa iskuma fiicno aad iskuma fiicna dhinaca Suudaan sidoo kale
South Sudan iyo Kenya bas u furan dalalka xuduudda laha gudihiisina dagaalada saa uga socda musiibo ayaa ku dhacday Abiy Ahmed run ahaantii Eritrea waxay sheegtay in gabi ahaanba duulimaadyadaasi aysan ka soo degi karin magaalada caasimadda dalka Ethiopia oo shirkadda Ethiopian Airlines aysan soo degi karin maanta ka bilaabatay ay xiran tahay gabi ahaanba aysan halkaasi ka soo degi karin ayay cadaysay iyadoo waliba rakaab tiro badan oo aad iyo aad u badan oo online-ka ugu go'da tigidhada dunida daafaheeda ay uga soo safrayeen ayna doonayeen inay ka soo degaan magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea xaalkooduna aad buu u xaraan yahay arinta laba arimood ayaa loo micnaysan karaa oo lala xiriirinaya waa midda koowaad Eritrea waxay doonaysaa in gabi ahaanba Ethiopia ay xuduudaheeda iska xidho maadaama Abiy Ahmed hub cusub uu shalay la soo degay ciidamana uu daadguraynayo aadna looga cabsi qabo in goboladii la isku haystay Eritrea iyo meesha la yiraahdo Ethiopia isku haysteen in dagaalo ay ka dhici karaan oo Abiy Ahmed uu doonayo inuu dagaal ku qaado dhinaca kalena magaalada Asab dekedan Asab aan dhahnay Eritrea oo Ethiopia Abiy Ahmed aad looga cabsi qaba iyadana inuu dagaal ku qaado oo markaasi uu Asab uu isku dayo inuu xoog ku qabsado maadaama uu bad raadinayo dekad uu raadinayo in markaasi Eritrea ay doonayso inay sii diyaar garowdo xiriirkan ay u jirto Ethiopia aysan wax calaaqad yeelan horeyna way ku hadasho waxay tiri anagu bad kirana ku siin mayno mid siinana kuma hayna bay tiri oo horeyba Eritrea u sheegeen dhinaca kale waxa iyadana la xiriirinaya in Turkiga iyo ay wada hadleen Eritrea Soomaaliya iyo Masar iyo Eritrea iyadana horey u wada hadleen isla markaana lagu heshiiyay in Ethiopia xiriirka loo jaro difaacna laga galo xeebaha Soomaaliya loona diyaar garoobo difaacidda baddaasi Soomaaliya iyo Ethiopia ku soo socoto ee ay doonayso inay hirgeliso labadaasi arimood ayaa lala xiriirinaya in ay sabab u tahay xiriirkan hadda ay u jartay Eritrea dalka Ethiopia ee duulimaadyadii shirkadaasi ay gabi ahaanba joojisay waynu eegi doonaa wixii ka soo kordho muuqaaladeena dambe ayaan idin kula wadaagi doonaa hadii la yiraahdo